Asalaamu calaykum. Waa anigoo ah Maxamed Muuse. Waxaan isku dayayaa inaan fahansiiyo waxay kala yihiin 2D iyo 3D. Marka hore waxa waa inaan fahanaa wuxuu yahay 2D. Runtii 2D waxaa isticmaashaa mar kastoo aad wax masawiraysid. Masawirkaaga aad tusaale ahaan oo kale waxaad masawirtay qofkan oo kale. Wuxuu ku nool yahay qofkan 2D oo ah X iyo Y. Yacni wuxuu u bixi karaa oo keliya kor, hoos, midig, bidix. Marka saas oo tahay waxaa jiraan softwareyaal badan oo ka caawinayaan inaad samaysid masawiraan sida Photoshop iyo kuwo kaloo free ah sida GIMP ama Krita. Marka aad taqaanid sida loo sameeyo masawir yacni 2D, waxaad samayn kartaa filin kartoonyaal sida Tom and Jerry ama Looney Tunes. Xataa waxaad samayn kartaa geemyaal sida Mario iyo Sonic. Marka waxaan u malayaa in isla fahnay wuxuu yahay 2D. Marka su-aashu waxay tahay waa maxay 3D? 3D waa sida 2D oo kale, laakiin tookadan waxaa isticmaalaysaa X, Y iyo Z, yacni kor, hoos, midig, bidix, hore iyo gadaal. Inkastay soo badanayn filimaanta iyo geemyaasha, haddana 3D wuxuu kala baxaa waxyaalooyin badan sida 3D printing, animation movie, VR, game, visual effect iyo design iyo xayeysiisyaal. runtii haddaa u baahan tahay inaad baratid intaasaan soo sheegay, waxaad lagaaga baahan yahay inaad fahantid wuxuu yahay 3D. waxaana loo soo gaabiyaa 3 waxyaalood oo ah 3daasha ugu muhiimsan, oona kala ah koowaad oo ah modeling, adigoo isku dayaysid inaad samaysid waxaa rabtid inuu noqdo. waxaa ku xigo texture, sida waxaad samaynaysid ugu ekaado wax run oo jiro. iyo lambar 3 oo ah lighting, oo ah inaad siisid nal si uu ugu ekaado waxaad samaynaysid wax run oo jiro. runtii 3daas waa 3 la soo koobay, laakiin markaad baratid 3dan ayaad u gudbi kartaa waxyaalooyin kale sida compositing. laakiin 3dan oo baahan doontaa 95% shaqadaada. hadda su-aasha waxay tahay ma waxaa jiro softwareyaal aad soo dhaawalgaraysan kartid oo aad ku samayn kartid 3D? runtii waxaa jiro softwareyaal badan aad ku samayn kartid 3D sida Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, ZBrush, Blender iyo kuwo kaloo badan. laakiin maanta kan ka hadlayna waa Blender, sababtoo ah waa kan keli ah oo ay free oona samayn karo waxay samayn karaan kulligooda. aniga ra'yi ahaanteeda waxaan igula tali lahaa inaad soo dhaawalgaraysatiin Blender, sababtoo waxaan aqaana dadyaal badan oo soo dejisteen softwareyaal lagada lacag oo haddana markay isticmaaleen bilooyin aanan ka helin oo haddana lacagtood loo soo celi karin maadaama ay gateen. marka Blender waa free, isticmaal intaad isticmaali kartid. haddii aanad ka helinna waad iska delete gareyn kartaa. haddii aad u baahdid mustaqbalka inaad soo dhaawalgaraysatid sida ZBrush oo kale, waxaa fiican inaad soo dhaawalgaraysatid Blender, aad ku barbaratid ilaa ku fiicnaanaysid sida loo sameeyo sculpt, kadibna soo gadatid mid lacag la gado sida ZBrush. ama tusaale ahaan oo kale haddaad baahantay inaad soo dhaawalgaraysatid Houdini, maadaama Houdini wuxuu ku fiican yahay simulation. Blender soo dhaawalgarayso ku baro, maadaama Blender xataa wuxuu leeyahay simulation fiican sida inaad samayn kartid biyo, qiiq, dab iyo physics iyo kuwo kaloo badan. xataa haddaa u baahan tahay inaad soo dhaawalgaraysatid Photoshop, Blender wuxuu leeyahay qeyb 2D animation ah aad ku barbaran kartid, aad ku samayn kartid xataa filimaan. wuxuu leeyahay waxyaalooyin badan oo kale inta lagu soo koobi karaynin. marka waxaa fiican intaanad soo dhaawalgaraysanin inaad fahantid waxaad baranaysid, hal wax ku takhasusid, sababtoo ah waa lagu daalaa. marka su-aasha waa sidee lagu soo dhaawalgarayaa Blender, inteena laga heli karaa? marka hore waxaa u baahantay inaad furtid Google-a, qortid blender.org, kadib waxaa u keenaa website-kan. waxaa baahantay inaad tabaad meesha ku qoran tahay download, haddana download. meesha aad ku qoran tahay Blender 2.82 way isbedeli karaan maadaama bil kasta waxaa la sameeyaa update. marka 82 meesha ku qoran tahay waxaa ku qornaa karo 83 ama 90 dhowr.
markan ugu dambeeya marka meesha yaalo kaas download gareyso. maadaama wax badan ma qaadanayo runtii, maadaama wax ka yar nus gigabyte oo 200 megabyte marka dhaqso kugu soo download gareysma. haddaa isticmaaloosid Abu Tufaax ama MacBook waxaa u baahan tahay inaad 2 mar meeshaas riixdid. kadib waxaad furi doonaa filekan, markaasna wuxuu wadaa soo dejistu wadaa. marka waxaa u baahan tahay inaad Blender gelisid filekaaga oo computerkaaga, kadib hor iska furo. sidaan u egyahay Blender. hadda waxaa fiirsan kartaa YouTube-ka videoyaasha lasoo saaray sida loo isticmaalo. anigana insha Allah soo geli doonaa videoyaan.